mid ka mid ah doodaha ugu culus ee maalmahan miiska saaran waa in ra'iisul wasaare Roble lagu wareejiyo amniga dalka sida uu dhigayo qodobka 9aad xarafka ba ee dastuurka Soomaaliya madaxweynuhu waa taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida 11 bilood ayaa laga joogaa markii uu muddaxileedkii sharciga ahaa ka dhamaaday Farmaajo xiisado kala duwan ayuu dalku wajahay muddadaas inkastoo uusan jirin qodob dastuuriya oo sheegaya cidda lagu wareejinayo amniga haddii madaxweynaha waqti uu ka dhamaado haddana waxaa jirta soo jeedin xooggeedu ka imaanayso xubno ka mid ah midowga musharaxiinta mucaaradka iyo hogaamiyaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani kuwaas oo Roble ku cadaadinaya inuu dalbado in amniga dalka lagu wareejiyo Farmaajo iyo Roble hadda waa isku dhacsan yihiin dhawaan ra'iisul wasaaruhu wuxuu ku amray ciidanka inay isaga ka amar qaataan soo jeedintaas iyo qodobka 9aad xarafka ba ee dastuurka Soomaaliya isma waafaqi karaan labada nin hadda xaalkoodu waa kacsan yahay haddaba dooda dhinacyada qaar ee ah Farmaajo amniga ku wareejiyo Roble waxaa ka hor imaanaysa dooda ah laba nin oo dirsan amni ma isku wareejin karaan sidee Farmaajo loogu qancin karaa nin aad dagaashan tihiin amniga ku wareeji haddii aad adigu isaga aamini weysay sidee isagu kugu aaminayaa iyo dooda kale oo maangal ah ayaa ku hor gudban codsiga sheegaya in Farmaajo amniga ku wareejiyo Roble inkastoo uu Farmaajo dhowr jeer qaaday tallaabooyin militari oo si weyn u dhaawacay dowladnimada Soomaaliya iyo shakhsiyadiisa haddana waxaa muuqata in qodobka amni wareejintu inuu wax walba ka culus yahay labada nin ee Farmaajo iyo Roble labadaba ciidamo ayaa hadda ugu jira gudaha xarumahooda wax aaminaad ah oo dhexdooda ah ma jiraan hadda laba nin oo sidaas ah amni iskuma wareejin karaan ee gacan saddexaad ma la heli karaa ayay dad badan isweydiinayaan AMISOM ayaa joogta Soomaaliya taas oo tan iyo 2007 waardiyo xoogan ka ahayd dowladnimada Soomaaliya haddii ay dhinacyadu is aamini waayaan AMISOM waxay noqon kartaa dooq furan ayay talooyinka qaar sheegayaan laakiin dhanka kooxda madaxweyne Farmaajo uma badna inay aqbalayaan inay ka tanaasulaan amarsiinta ciidanka sharciyaqaanada qaar waxay leeyihiin markii madaxweynaha la doorto waxa ugu horeeya ee lagu wareejiyo waa amniga dalka sidaa darteed Farmaajo waxa ugu horeeya ee uu ku wareejin doono qofka bedelaya waa amniga wuxuuna ku qasban yahay inuu sugo ilaa dhamaadka doorashada Muqdisho hadda waxaa ka socda shir u dhaxeeya shanta maamul goboleed gobolka Banaadir iyo ra'iisul wasaaraha Roble waxaa lagu cadaadinayaa inuu qodobka amniga ka dhigo mid ka mid ah ajendayaasha kulanka laakiin waxaa la fahamsan yahay inaanay maamulada qaar diyaar u ahayn in arrintaasi laga dhigo ajenda quseeya golaha kal hore Farmaajo wuxuu amniga doorashada ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha laakiin ma wareejin amniga dalka Roble waxa u bannaan inuu dhisay ciidan si gaar ah u suga amniga doorashada oo uu ka dhex sameeysto ciidamada uuna u magacaabo taliye maadaama uu isagu madax ka yahay guddiga amniga doorashooyinka wadamada reer galbeedka ee cadaadiska badan saaraya maamulada iyo midho dhalka shirka golaha wadatashiga qaran waxay xoojinayaan inaan waqti badan la gelin qodobka kala wareegga amniga maadaama uu kaasi noqon karo qodob adag oo dib u sii dhiga guud ahaan doorashada mucaaradka qaar waxay leeyihiin dalkan doorasho kama dhici karto inta uu Farmaajo haysto hoggaanka ciidanka lamana yaqaano sida la isku waafajin karo dooda mucaaradka iyo qodobada sharciga ah ee ku horgudban cidda ammaanka dalka mas'uulka ka ah ilaa laga doorto madaxweyne cusub maxay kula tahay